gabadha waxaan ka soo qaaday markii hore Hargeysa xaaladeeda sidii markii hore baan idin sheegay hal meelood bay ka jabantay baa lagu yiri laakiin halkan Turkiga markaan ogaaday waxaan ogaaday inay 3 meelood ka jabantahay dhabarka. Ramadaan mubaarak taawadayaal waxaanu ku booqanay hoyga ay ka degan tahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga hooyo Xaliimo Ismaaciil Jaamac. hooyo Xaliimo waa hooyada dhashay Fahiime Maxamuud Xaaji Nuur waxayna dalka Turkiga u keentay xaalad caafimaad sanadkii tagay ee 2019. waxa ay bulshada Soomaaliyeed ka codsatay in laga caawiyo dhaqaalaha aysan awoodin ee dhaqaatiirtu u sheegeen waxayna inooga waramaysaa hooyo Xaliimo Ismaaciil xaaladda ay ku sugan tahay gabadheeda yar ee Fahiima. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. magacaygu waa Xaliimo Ismaaciil Jaamac waxaan ahay Fahiime Maxamuud Xaaji Nuur hooyadeed waxaan joogaa wadanka Turkiga siiba ahaan magaalada Ankara waxaan imi bishii 9aad 3deedii waxaan keenay Fahiime Maxamuud Xaaji Nuur oo xaalad caafimaad aan u keenay kadib xaaladii caafimaad waxay u qaadatay ilaa bishii 9aad ilaa hadayo maanta inaan maxaan ku leeyahay aan dhakhtar kula jiro dhaqaatiirta gobolada mid aan soo marin ma jiro dhakhtar kasta wuxuu ii sii gudbiyaa markuu xaaladeeda arko dhakhtar kale oo ka sii sareeya dhakhtarkaasna wuxuu markuu xaaladeeda arko wuxuu ii sii gudbiyaa mid kale oo isleeyay markaas waa ku sii dhaama ama uu ku sii tala dhaama ama uu maxaan ku awoodi karaa qaliinka gabadhaas lagu sameynayo gabadha marka xaaladeeda dhakhtar kasto aan u geeyaa madaxa ayuu ka lulay 3 meelood ay dhabarka ka jaban tahay dhaqaatiirta wadankuna aad ay uga diiriyeen leeyihina mid kastaaba mid uu iskaga riixayo waxaana ii sheegay inay 3 qaliin galayso 3 qaliina aad u culus yihiina 3 qaliin oo baqtiya nasiib intooda badan tahay marka kii ugu muhiimsanaa ee imika yidhi waan qalaya 2 dhakhtar baa ugu muhiimsanaa mid Antalya jooga iyo mid Istanbul jooga labada dhakhtar waxay ugu yiraahdeen midna 27,000 midna wuxuu qoray 22,000 marka gabadha yar waxa awood aan anagu u hayay ama intii aan la tacaali karay waxay noqotay inta ama aan Turkiga keenay ama aan dhaqaatiirta marinayay waxa maanta halkan igu kalifay inaan muslimiinta u soo bandhigo awood aan u waayay maadaama ilmahayga dhibaatada caynkaas ay tahay muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay meel kasto ay joogaan dunida daafaheeda ilmaha yar qaliinkiisa ay gala qayb galaan si aan aniguna hooyanahay aan awood ugu yeesho in ilmihii ku dhiirado saanu qalo maadaama meel kasta oo aan geeyo ay iga horeymanaysa caqabad ah lacagta ugu badan dhaqaatiirta bareefadada ah waxay iga bilaabayaan marka aan qalitaanka ay soo diyaariyaan markasta waxay goranayaan 30,000 dhowr iyo 30,000 marka laakiin waa dollar maaha liirada wadankan haddii aan ku xisaabiyo liirada wadankan anaga aad bay u badan tahay laakiin waa 30,000 dollar ilaa 27,000 ay ii soo gaarsiin ugu dambeyntii imanka marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay si naxariis leh iiga soo caawiyaan gabadha yar qaliinkeeda aabaheed ma awoodo inuu lacagta inta le ka bixiyo wax ay helo magaalada muslimiintaas caawisa mooyaane cid kale oo helo magaalada igula joogtaana ma jirto marka waxaan si sharaf leh muslimiinta uga codsanayaa iyo si naxariis leh inay ii soo caawiyaan gabadha yar lacagta inta le maadaama aan awoodi kari waayay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo idinkana sadaqa jaariyana idinka dhigo anigana ay waxtar igu yeelato ilmaha yar ee meesha cidlada aan ku hayo ee marka wadankaygii ahayn aan ku hayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala saasaan idinka baryayaa in idinkuna igu soo garab gashaan oo igu soo caawisaan waxaana dhici karta qofka marka la qalo ay dhaqaatiirtan dadka qalaan ama 30,000 ku qalaan ama 40,000 ku qalaan ay sariirta dhigaan waxa dhacda inay lacag inta ka badan ay ku soo dalacaan oo ma garanaysa chiefki iyo wixii ay hadana dubku ugu xisaabiyaan oo lacag aan iska ogeyn lagu soo dalaco waxa jira dadyaabo badan oo saas oo kale ay ku dhacday maadaama in badan anigu dhaqaatiirta mariyay oo aan xifrad u yeeshay baa intii aan dhaqaatiirta mariyay sidoo kale waxa dhankeeda waxa ku saabsan xaaladda Fahiime inala wadaagaysa hooyo Anisa oo muddo ay guriga la deganaayeen magacayga Anisa Cali Daryeeli hada walaalayaal الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala waxaan ammaanaynaa ammaan qalanta oo u cuntanta walaalayaal bulshooyinka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan warbixin yar inaan ka siiyo fahiime maxamuud xaaji nuur arinteeda waxa weeye inta aan kala socdo gabadha yar September halkan inoogu timi muddo bila gurigay aan ku wada nooleena gurigay joogtay runtii inta hooyadeed idin sheegtay weeyaan haddaan ku sii daro gabadha yarta waa gabadh yar oo wax weeye 16 jira waad garan kartaan macnaha ilmo yar oo maxay soo kacayay oo maxay 14 weynay 14 weeye maxay ahayd ilmo yar soo kacayay oo hami laha maxay ahayd iyo waalidinta gacanta ku haya macnaha hiigsi laha oo xanuun u yimi masaa'ib noocaas ay ku dhacday maxay ahayd oo aan tamar dadkii waalidka ahaa ee dhalayna aanay u hayn waad dareemi kartaan macnaha dhibaatada iyo ay leedahay marka waxa weeyaan ilmaha yar intay hooyadii sheegtay weeye runtii dhabarka weeye nabar weyn oo saa soo kuusan maxana kaga yaalay markii la keenay waana jabis baaliya xagga dambe dhabarka ah weeye muddadaas waxa weeye gobolada ay idin sheegtay walaal ay la soo mareysay markii ugu dambeysana waxay gaadhay lacagtiina lacag haba yaraatay dadkana ay tamar u hayaan ma aha marka waxaan cod dheer dadka maxay ahayd samafalayaasha ah meeshay doonaan baa joogeen fariintaasaan u dirayaa dadka samafalayaasha ah inay arintaa waxa weeye istaagaan Soomaalidu waa dad khayr jecel waa dad iscaawiya waa dad wanaaga jecel oo aan maxay ahayd u aabiyeen qofkaasi halkuu ka yimi iyo meeshuu ka yimi toona dadka muxsiniinta ah ee culimo leh ee dadka samafalayaasha leh ee dhalinyaro leh ee waayeel leh inta codkeena uu gaaro waan idin ducaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay ha idinka siiyo gabadha yar istaaga sidii aad ugu istaagi jirteen ummadaha kale oo dhanba fahiima way idin baahan tahay hooyadeed oo gabadh iyo dhalinyaro oo shabaab runtii way idin baahan intuba aad baan idinku wada baahannahay annaka xataa idin baahan ku ilqaboosan lahayn gabadha yar inaad wixii aad u qabataan waxaan baaq dheer ummadda Soomaaliyeed especially samafalayaasha iyo culimada iyo dhalinyarada iyo waxgaradka intuba aan ugu dirayaa inay soo saacidaan fahiima soo saacido walaalayaal fahiima ilaahay idin saacido ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inta qofka walaalka amuurtiisa aad u taagan tahay ilaahay adigana amuurtaada isaga tawaliyaya waa arin xaqiiqo ah waa arin maxay waa dadka macnaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu jecel yahay waxa kamid ah inaad u gargaarto qof walaalka ah fadlan walaal ku soo taageer waxaad awoodo waa dareemi kartaa hooyo gabadheeda ku haysa dal shisheeye haddana ay duruufo dhaqaale la soo diristay waad mahadsantihiin walaalo lambarka layga soo helayo ama layga soo wici karo waxa weeyaan 905447162025 Soomaali haddii aan ku sheego waxa weeyaan 9 ibir 5 4 7 6 25 ayaa ugu dambeeya 25